culimada waaweyn ee magaaladan Gaarisa iyo madaxa jaamacadda Mustaqbal Dr. Ali Tawane ayaa fariin naxariis leh u diray dhammaan siyaasiyiinta Gaarisa County kuwa ku jira iyo kuwa haatan murashaxiinta ah ganacsatada Soomaaliyeed dal iyo dibadba ha joogaane iyo waliba dawladda dhexe dalka in gurmad degdeg ah lala soo gaaro dadkii ku waxyeeloobay dabkii ka kacay suuq Mugdi iyo Bohan ayaa iyana waxa qayb ka ah culimada udiinka maamul goboleedkan Gaarisa waxaana lacagaha lagu soo hagaajinayaa guddiga culimada ku howlan sidii dhaqaale loogu ururin lahaa ganacsatadaasi halka ku ceertoobay nambaradooda waa kuwa shaashada saaran culumadan waxay maartay ka hadlayaan suuqi gubtay ee magaalada Gaaris suuqeeda ahaa ayay maartay ay ka hadlayaan oo umada ay u baahin hayaan in arintaas wax lagala qabto marka waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Cabdullaahi Cuthmaan oo arinta ayada ka hadlayo umada Gaaris degan ku habsatay bay ahayd marka culimadan kulligood mas'alada waxa ugu kulmeen inay gaarsiiyaan muslimiinta dibadda iyo gudahaba oo meesha wixii laga qaban karo laga qabso Rabbana yaqulu fi kitaabihi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa yaqulu nabi sallallahu alayhi wasallam wallahu fi 'awni al-'abdi ma kana 'abdu fi 'awni akhihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi marka kaalmahaas baan maartay iyo qaylada baan maartay isku imaanay dadkii dibadda iyo gudahaba inay murtaayada ay arkaan oo maqlaan oo ka danqadaan oo ninka waxili karana uu ka qayb qaato gacan ninka kalena uu u duceeyo dadka musiibada Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu bedelo maartay khayr iyo ciwad iyo bedel marka umurtaasaan u kulanay umurtaasaan gaarsiinayna walaalaha muslimiinta waad mahadsantihiin inaad ka qayb qaadataan umurtaas gacan iyo ducada ayaan maartay isku yeelina wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh runtii xadadka dhacay waa xadad aad u weyn musiibo weyn ka dhacday waa ishii kaliya ee magaalada ay ku nooleed in istimtixaamina ilaahay baa noo sheegay subhanahu wa ta'ala wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarati wa bashir as-sabirin bi ilaahi subhanahu wa ta'ala alif lam mim hasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun al-istiham ilaahay baa noo sheegay subhanahu wa ta'ala dadka musiibada ay ku habsatay marka ugu horeysa waa u tacsiinayna ilaahay subhanahu wa ta'ala musiibada ku habsatay ciwad ka khayr badan oo degdeg ilaahay hasiyo ilaahay booga dhawo musiibada ku habsatayna ilaahay samar iimaan ilaahay ha ka siiyo ayagana kuwa imtixaanka ku baasay ilaahay ha ka dhigo baaqan u dirayna muslimiinta waa maxay waa inta culimada ay ugu horeysay ay yiraahdeen dadka walaalaha ee musiibada ku habsatay hadee waa dad muslimiin ah walaalo oo ehel ah waa ishii kaliya ay maalayaan weeye waxa loo baahan yahay in la garab istaago nin walba waxa loo baahan yahay dadkaas muslimiinta inuu garab istaago waa imtixaan weeye ayagana waa la imtixaamay anagana waa imtixaamanay hadaan ka aamusno imtixaankaas dibuuna haasta marka waxa loo baahan yahay waad arkaysan xadiiskii uu sheekh akhrinayay xafidahullah nabiga wuxuu leeyahay alayhi salatu wasalaam مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى نبي مسلمين هل جربك كعبره صلوات الله وسلامه عليه جرك حيبن كامده هدو حنوصو جرك انتيس كلا ما حنوها مهر دكره marka waa tusaale aad cajiib oo weeyaan marka walaalaha muslimiinta meel alla la meel jooga ama dal iyo dibadba maxaa la codsanahay culimada codsanaysa dadka walaalaha musiibada ku habsatay in la garab istaago nin walba wuxuu u hori karo u horo ilaahay subhanahu wa ta'ala anagana naga thawaabi waxaan raacayaa culimadii iga horeysay intay sheegeen waan maaragtay u dhaadaya runtii wada socotiin maaragtay adduunka dhibaatada dhacday iyo culeyska ku dhacay maaragtay suuqa Gaariso waxaan horta u dardaarmaynaa maaragtay walaalaha muslimiinta oo dhibaatada ku gaartay sabar iyo iimaan baan u dardaarmaynaa ilaahay sabar iyo iimaan Allah ka siiyo بدل خير لنا الله سوقليه سبحانه وتعالى بدل labaad waxaan ugu baaqaynaa muslimiinta ama bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo adduunyada ay ka joogaan wadanka gudihiisa iyo dibadiisa dadkaas dhibaatada ay ku gaartay meesha in loo soo gargaaro baaqa aan dirayna waa intaas waxaan leenahay walaalayaalow nin kasta meesha joogo ninkii ma aragtay duco ku soo kaalmeyn kara dadkaas ninkii dhaqaale ku soo kaalmeyn karo nin kasta wixii tabartiisa inuu ma aragtay bulshadaas lagu taageero oo garab loogu noqdo waxaan ugu baaqaynaa ma aragtay muslimiinta masaajidda culimada aymatul masaajid arintan ma aragtay inaan iska kaashano oo nin kasta u joogsado ma aragtay oo si fiican
dadka walaalaha oo dhibaatada ay gaartay in loo gurmado baan ugu baaqaynaa bulshada meel kasta oo adduunyada ay ka joogaan dhalinyarada waxaan ka codsanaynaa ayagana arrintan ma aragtay dad badan mayna gaarin inay si fiican oo qayb qaataan oo media si fiican u geliyaan oo warka oo meel kasta galo oo ummadaas ma aragtay dhibaatada ku dhacday nin kasta ma aragtay inuu ogaado ayaan codsanaynaa waxa kale oo ugu baaqaynaa ma aragtay dadka madaxda ah iyo mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta arrintan inaan ma aragtay ay iska kaalmeystaan oo ma aragtay dhamaantooda ayagoo gacmaha ishaastaan inay bulshada ay u soo gurmadaan baan madaxdana ugu baaqaynaa oo weli waxaan ka codsanaynaa inay ka hadlaan arrintan iyada ah oo baaqay u jeediyaan ma aragtay adduunka ragga siyaasiyiinta ragga khaasatan magaalada Garissa County dadka mas'uuliyiinta ka ah dhamaantooda waxaan ugu baaqaynaa ma aragtay inay arrintan ay aad uga hadlaan oo bulshada adduunka ay la hadlaan oo baaq ay jeediyaan oo ma aragtay ummadaas aan wala gurmano dhamaanteena aan wala istaagno taas baan ma aragtay anigana aan ku dhaadaya wajazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum alxamdulillahi rabbil aalamiin wabihi nastaciin ala umuri dunya wadiin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin walaalayaal inta kadib saad ogsoontihiin musiibo aad u weyn baa magaaladan yaa qabsatay isbuuc hadda aan soo dhaafnay waa la socotaan idaacadaha iyo warbaahinta kulli waa la socotaan culimada saaka way isku timid soo baxday bal arrintaas in ay ka falceliso oo baaq ay ka dirto muslimiinta lala hadlo bay culimadan maanta u soo baxeen waa arkaysaan sheekhana alfaadil alwaalid sheekh Abdullah Buuro waa arkaysaan ninka xaq xiga waa Dr. Ali Tawane mudiir jaamacada mustaqbal sheekh Xasan Khaliif dhammaan waa mas'uuliyiintii jaamacada mustaqbal xaqam xaqiga tahay sheekh Abdulwahab Duwane wax kale oo maana soo bixin waxaan u soo baxnay bal meeshii musiibada ay ka dhacday inaan muxuu ahaa aan soo kormarno dadka muslimiinta muxuu ahaa musiibada ay ku habsatay aan soo aragnaa xadka ay baaxada ay leedahay kulli hadda waad aragtaan waxa inii muuqda waa meeshii dabka qabsaday weeyaan waa suuqii dhannaa waa ishii kale ee magaalada ee run ahaantii ay ku nooleed weeye wax ka haray ma laha waa lagu basbeelay waa lagu hantibeelay ficlan marka ugu horeysa dadka muslimiinta ee waxaan leenahay ilaahay samar iimaan ha inaga siiyo ilaahay samar iimaan ha inaga siiyo in la imtixaamina ilaahay baa noo sheegay subxaanahu wa ta'ala ilaahay baa noo sheegay imtixaanka intaas oo nooc buu ka imaanaya kuwa imtixaanka ku samra ilaahay anaga dhigo subxaanahu wa ta'ala qofka muslimka waa inuu mar walba ilaahay u weydiisto haddii la imtixaamo inuu ku samro haddii loo nimcayo inuu ku shukriyo haddii uu samiraxooda inuu ilaahay u toobad keeno subxaanahu wa ta'ala marka daartan waa daaru ibtilaa imtixaan weeyaan marka dadka muslimiinta ee musiibada ay ku habsatay marka ugu horeysa maxaan leenahay ilaahay samar iimaan ha inaga siiyo ilaahay samar iimaan ha inaga siiyo cubad ka khayr badan oo degdeg ah ilaahay badal khayr badan oo degdeg ilaahay ha ina siiyo idinkana ku imtixaanka ku samro ee ku baasta ilaahay ha inaga dhigo baaqa aan u dirayna muslimiinta meel allaala meelay joogaanba dal iyo dibadba waa maxay dadka walaalihiina ee musiibada ay ku habsatay inaan laga aamusin gacmaha aan laga laabanin la garab istaaga nin walba wixii uu awood inuu lagu garab istaago waa waajib sharci oo nabad saaran weeyaan ilaahayna subxaanahu wa ta'ala arrinta adeeg waa la isweydiini amaam allahi marka waxaa loo baahan yahay dadka walaalaha muslimiinta ee musiibada ku habsatay dal iyo dibadba waxaa loo baaqayaa culimmada ay baaqa u dirahaysaa in dadka walaalaha loo soo gurmada oon laga aamusin oo gacmaha aan laga laabanin baa loo baahan yahay taasuu ilaahay noogu naxariisin subxaanahu wa ta'ala wax kale ee culimmadan maanta ay u soo baxday ma laha khaasatan dadka mas'uuliyiinta ee madaxda ah magaaladan Garissa County arrintan mas'uuliyad gooni baa inaga saaran waxa maanta basbeelay waa dadkii aad matalayseen weeyeen waa dadkii aad madaxda u aheedeen waa shacabkii waxa maanta basbeelay ee hantibeelay amaam allahi arrintaa waa la isweydiin madaxda markaa waxaan leenahay arrintaa ayada ee mas'uuliyadda si gooni bay inii taabanaysaa arrintaa ayada waa in laga falceliyo waa in loo kala harin dal iyo dibadba waa in loo kala harin arrintaana ilaahay loogu dhawaado subxaanahu wa ta'ala annagana ilaahay maxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa ta'ala biasmaa'i alxusnaa wa sifaati alculaa dadkaas musiibada ay ku habsatay inuu ilaahay u booga dhabo bedel ka khayr badan oo degdegna ilaahay uu siiyo baan ilaahay ka baryaynaa si kastaba ha ahaatee gubashada suuq mugdi ayaa ah mid soo laalaabatay hadeer iyo mar horeba ma jirto cid loo soo qabtay sababta gubashada suuq mugdi